maanta taariikhdu tahay 28 bisha tobnaad 2019 kala fadhiga 45aad fadhigiisa saddexaad goluhu wuxuu guda galay ka doodista ajandaha rasmiga ah ee goluhu ku shaqayn doono kala fadhigan sida ku cad dastuurka dawladda Puntland iyo xoroosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland waxaana goluhu ansixiyay ajandaha rasmiga ah ee ku howlgali doono ama ku shaqayn doono kala fadhigan haddii Ilaahay yiraahdo sidaasana ajandahaas ku ansaxmay waxaana goluhu gudagali doonaa muddooyinka soo socda dhageysiga warbixinta guddiga joogtada dhageysiga warbixinada madax gudiyada golaha wakiilada iyo ajandayaasha kale oo goluhu sida rasmiga ah u ansixiyay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan doonayaa inaan la wadaago warbaahinta qaybaha kala duwan aad iyo aad u mahadsantiin ajandayaasha uu goluhu maanta sida ku ansixiyay ama uu ansixiyay waxaa ka mid ah ansixinta xeerarka sida ku meel gaarka ah ee guddiga joogtada u sii ansixiyeen ansixinta miisaaniyadda 2019 ansixinta guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ogolaanshaha qorshaha istiraatiijiyadeed ee 2019 iyo 2024 ee golaha wakiiladu uu ku howlgali doono sidoo kale wixii xeerara ay xukuumaddu u soo gudbiso heshiisyada ay xukuumaddu gashay kuwii hore dabagalkooda iyo kuwa cusubba sidoo kale dib u eegista xeerarka u baahan in dib u eegista lagu sameeyo xaaladda amniga siyaasadda dhaqaalaha dalka arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka Soomaaliya la xisaabtanka xukuumadda xaalufinta deegaanka iyo jariifka badda dhamaystirka maxkamadda dastuuriga ah xaaladda wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo dib u eegista hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA shaqaalaha ajaanibta barnaamijka dimuqraadiyiinta Puntland iyo xaaladda gobolada Sool iyo Sanaag ayuu ajandaha ugu muhiimsan ee maanta goluhu wakiiladu ay ansixiyeen kuna howlgali doonaan oo ay ka koobnaayeen aad iyo aad u mahadsantiin